gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabduqaadir Siciid Arshe Dhaqaaji ayaa ka warbixiyay xaaladda gobolka Karkaar isagoona ka hadlay waxyaabaha ay ka qabteen amniga horumarka iyo abaar baahsan oo muddooyinkii dambe ka jira gobolka Karkaar sidoo kale gudoomiyaha ayaa ka hadlay roobab ka da'ay qaybo kamid ah gobolka Karkaar aad iyo aad baad mahadsantahay waana salaamaya telefishinka Somali News ee shaqaalihiisa bacda salaam waa run waqti adag baa la soo maray oo jiilaal baahsan ka jiray gobolka aduu waqti yar baan joognay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa qaybaha kala duwan dawladda Puntland golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka iyo shaqaalaha gobolka iyo hay'adaha laamaha amniga oo gobolka ka howlgala dhamaantood sida hufan ay ila shaqeeyeen intaan joogay runtii waan oran karaa farkaliya fool ma dhaqdo qof kaliya wax ma qaban karo laakiin wax kasta waxa lagu qabtaa wada jirka marka gobolka wax badan baan oran karaa baanu wax ka dhaqaajinay baan oran karaa intaan joognay waxyaalaha aan oran karo waxa ka mid ah isku xirka degmooyinka gobolka kooban yahay waan isku xirray waxaan kaloo sameynay kormeero badan oo aan sameynay waxaan soo ogaanay baahiyihii ka jira gobolka kuwa wax laga qabtay xaqiiqdiina way jiraan inkastoo waqtigu ahaa waqti adag oo waqti jiilaal aan la kulannay waxaan kaloo oran karaa waxbaa laga qabtay xagga amniga wax badan baa laga qabtay sidoo kale colaado jiray kuwa hore u jiray iyo kuwa dhacay hadda intaan joognay kulli waxbaan ka qabanay waa xalinay xagga arrimaha horumarinta waxaa kaloo jira xarunta gobolka Karkaar oo kale oo isku tashi dawladda Puntland iyo heer gobol isku tashaday oo hadda ka socdo dhisma xarunta gobolka oo ku shaqeyn lahaa bulshadana loogu adeegi lahaa iyaduna waxa weeye waxqabadyada aanu qabanay ayay ka mid tahay waxa kaloo ka mid ah xagga amniga markaan ku noqdo dardargelinta amniga baa ka mid ah waan dardargelinay waxqabadka waxaan kaloo oran karaa waxqabadyada aanu la taaban karo waxaa ka mid ah waxaanu soo dhisnay golihii deegaanka degmada Bayla kuwa hore waqtigoodii dhamaaday dowlad deegaan oo cusub baa loo soo dhisnay dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo ka gobol ahaan anagoo isgarabsanayna shaqada iyadiina ay ahayd waxaan kaloo soo dhisnay golo cusub waxaan soo dhisnay degmada Raka Raaxo oo iyadana ahayd markii u horeysay oo golo deegaan loo soo dhiso gudoomiyaha Cabduqaadir Siciid Arshe Dhaqaaji ayaa wax ka weydiiyay dadka caadeystay xaalufinta deegaanka iyo waxyaabaha uga qorsheysan horta anagu shirar badan baan qabanay wax garadka oo cuqaash u horeyso iyo qaybaha dawladda inaan laga daba iman wasla garanay midda aad tiri saxaafadda laakiin kolba anigu waxaan hubaa inta qolyo badan oo la soo qabtay oo anigu aan goobjoog ahaa ilaa heer maxkamadeed oo maxkamadda la xukumay oo 2 sano qayb aan taagnaa lagu xukumay oo xabsiga loo gudbiyay intaas aanu si fiican oo markaan furi karaa Maxamuud Yuusuf Caamir TV-ga caalamiga Somali News Qardho.